يا مزايد كاس كنت كتب عشها وحرية الومد كذب لأن قفل بوا وعرري وحوس لها محوا جوري كجارسي أمن دردا أنا كنت أمن دردا كنت إن مساجد كانت دور مال الموضوع حرنا هذا محو حرنا هذا حافظ الدجالات السعودي وبس وبحرية هذا المساجد مركب ما العبادي سكر حتى لما عبادي سكر حتى قياس دل كان ضد كريستانا ضد مسلمة يكوا محوا هندوء يؤون ضد لمدها وكلا ددونا كنور هدي أنو أمن جرين مقالدان بوليس النظام الشرعي أنو جرين كنيسنا لما آذي مساجدنا لما آذي تنبلنا لما آذي قف آذي سبجرت لما آذي كرب قفل أنت مساجد سعى تنبل أنت كريستنا أنت سعى أم لو دحقر حياة أم جيتك لو قرا لما آذي مركا أمنجو وآخر الدنيا إسرائيل سعودوا إن أمن لهرو آدي آذا مركا آدي مهم وياي أمنجي مركا مقالة مقدشو مالنتان نمدي لحدن يلا إسبارو أيا مقالة مقدشو لحدين التيل حافظين مركا لاسكو سو دردر لحدن يلا إسبارو ميلتال أو حافظ تنواتي رير هبل تنواتي هبرو تنواتي إن هبل لليه dadka uun waa la hadalnay booliis iyo dil iyo xabada iyo kama ayan dhicin waa laga qaaday isbaarooyinkaas magaalada muqdisho maanta qofkii waayahan dambe tagay wax isbaaraha u dhaxyaa lama jiraan marmar booliiska iyo nabad sugidda oo meel taagan oo baabuurta baarayo saacado kadibna meeshaas ka tagayo waa laga yaabaa in lala kulmo laakiin meel isbaaradii reer hebelaa taalo isbaaradii in hebelaa meel taalo la leeyahay muxuu ahay kama jirto ilaahay idinkiisa dagaalka maanta markuu wuxuu ku kooban yahay nimanka la yiraahdo shabaab dalka intiisa badan waa laga saaray inta kale waa lagu daba jiraa laakiin maxay sameynayaan dalka marka laga xoogooda markuu yaraadaba mujtamaca inta dib ugu soo noqdaan ayaa waxad aragtay sameynayaan maqaayadan qarxi maxaan ku yiraahdaa hotelkan qarxi maxaan ku yiraahdaa maxkamadda suuqa waxa hadda ka socdaay waa waxaas waana tii ugu dambeysay yani heelaqadii ugu dambeysay waaye muxuu ahaay noloshooda ilaahay idinkiis waanan ka guuleysanaynaa dalkana muxuu ahaa soo noqonaysaa dowladnimadiisa haddii alla yidhaah waxaa soo hartay arrimaha siyaasadda dabcan waataan haddaati sheegayo hal mar annaga dowladnimada inaan fiican dig nooma soo dhahayaan waxaa noo imaanayaahi waa wax tartiib noogu yimiday waay dowladdii dhexe 2000 laga soo bilaabo waagii carta laga soo noqday dowladihii ku meel gaarka ay isku xigxigay magaalada muqdisho badankood ma dhaafi jirin magaalada muqdisho ku ekaan jirin magaalada muqdisho hadda marka dowladnimada inay ka baxdo oo ay balbanaan ka tagto maanta dowladnimada iyo siyaasadda iyo muxuu ahay mustaqbalka meelo muqdisho aad uga fogfogaa looga doodaa oo loo fadhiyaa oo looga tashanayaa yacni dadku in ay bal mar inta meel isugu yimaadaan ay tashadaan oo ay see wax yeelnaa waxaan fursad dadku u siinay halkii dowladda dhexe iyo muqdisho dadka jooga la eedayn jiray fursad in la siiyo bal dadka deegaanada degan in ay ayagu kuwooda ka dhashay deegaankaas u dhashay degan noloshooda meeshaas ku xiran tahay ganacsiga ku leh ama xoolahooda ay halkaa joogaan in mas'uuliyadda intay u dhiibaan berri hadday wax ka hadleeyaan la yidhaahdo hadda sow adigu umaadan dhiiban ninkaan aad muxuu ahay waxa leeyay miyaa lagu magacaabay miyaa meel kale laga keenay miyaa dusha lagaaga keenay marka nidaamka dowladnimada hadda meesha soo maraya maamulada ku meel gaarka ee aad maqasheen duruufo ayaa keenay laana dalkeenna waad ogtihiin 1960kii ayaan dowlad noqonnay ilaa 1990kii 30 sano ayaan dowladnimada casriga ee maanta jirtay yaan waaye aragnimo u leenahay 30 sano wuxuu ka koobnaa 9 sano oo xukun rayida ah iyo 22 sano xukunkii militariga ah
labadaba waxay ka sinaayeen dawlad dhexe oo xoog badanay labaduba ay ahaayeen xukun baahsan oo muxuu la kabyo kala duwan leh meelo kala duwan ka jira ma ahayn qaanuun kasta oo dalka laga sameeyay muddada 30 sano ah wuxuu u adeegaa dawladdaas dhexe oo awood badan ayuu u adeegay dalkeenu marka ma laha qaanuun noo kala tilmaamayo dawladda dhexe iyo midda gobolka iyo midda deegaanka iyo waxa ay kala leeyihiin iyo awoodahooda iyo wuxuu noo kala tilmaamaya ma laha dawladnimaduna waa qaanuun iyo nidaam haddii aanay jirin ma shaqaynayso inaan markaa federalismkii aan dalku waa federal xukunkiina muxuu ahay gobolada iyo degmooyinku aaday waxaa noo muuqatay inay conflict khilaaf horle iyo dagaal horle iyo isjiidasho horle inay ka imaanayso markii aan maagno waxoogaa way culays badnaatay hadda marka maamullo ku meel gaar ah ayaa dalka ka jiro maamulada ku meel gaarka laba ujeeday leeyihiin mid waxa waaye dadku ha ku sii tababartaan oo ha bartaan oo ha arkaan mas'uuliyadda dawladnimada markay u timaado deegaanka ay timaado waxa saaran ee laga sugaya ha arkeen oo horta muxuu hawsha gacanta ha la galeen ha barteen waa midda labaadna waa ku meel gaar inta sharciyadii federalismka wixii laga soo dhisayo oo laga dhameystirayo oo baarlamaanka federaalka ay xukuumadda dhexe ay ka diyaarinayaan oo ay ka sameynayaan oo dastuurkii dib loogu noqonayo loo habaynayo intaasna muxuu ahay hasii jiraan ku meel gaarnimadooda ha ku sii jireen ka labadaas ay leeyihiin waxaan rabnaa berri waxaan rajadan qabno xitaa waxaan gaaraynaa shuruucdii nidaamka baahsan ee xukunka oo qeexan oo leh oo dalkii uu leeyahay iyo dadkiioo bartay maanta waa la isku qabsaday xaggaa laga buuqay intaa laga buuqay xaggaa laga waxeeyey laakiin buuq waa laga gudbaa maalinta dambe waxaa la imaana meeshii war shalay meeshii aan isku qabsanno waa meeshaan bal aan ka leexannaa laleeyahay maanta oo aan wada dhinaca ay ku habboon tahay aan u leexinna geedda marka wax dhiba ma jiraan qof nin fuundi oo guri dhisayo shaati cad inta gashado shaatigu yaanay shamintadii waxaana iiga bidin oo waxba yaana iga gaarin hay caddaado macquul maaha waxaad arkaysaa marka fanfaniinkii guriga cusub ee la dhisayo waa dhibaata ma jirto colaadi ma jirto cid isku soo duulayso isdilaysaa ma jirto cid kale maxaa laakiin waxa waaye waa hanaqaadkii waaye waa tallaabadii lala kufkufayo laakiin kufkufidda waa ka baxayna waa xoogaysanayna waxaa jirta mar walba oraah iyo muxuu ahay aan isticmaalo oo ah wiil aan dhalan ma dhaamiyo dadka biyaa baadiyi ka yimid oo dhaansan jiray wiil aan dhalan ma dhaamiyo baadiyaha waxaa jirta waxa la yidhaha saddex subaxley 3 maalmooda awrka inta sii rarnaadaa biyo la raadinaya 3 maalmood kalena biyaa la soo wadaa reerka loo keenaya meel biyo aad ugu fal degan xoog rati xoog leh iyo wiil xoog leh u baahan tahay marka oo meesha muxuu ah biyaha ka keeno marka wiilkii haddii aanu dhalan oo aanu korin oo aanu xoogaysanin oo aanu wax baranin goormuu muxuu ahay meeshaas biyo ka keenaya annaga waxaan haysta marka waa midda koo horta waa inuu wiilkii dhashaayo wax maamul iyo nidaam magaciisii wato oo qaab kale waa inaan sameynaa haye marka labaad waa inaan barbaarinaa oo aan ogaanaa inay tabar daran yihiin oo muxuu ahay ku kufayo oo dhacayo oo khaladaad badan ka imaanayaan dulqaad iyo barbaarin waa inaan ugu darnaa si uu inta u xoogaysto berri oo wax noogu taro maamulkaas marka cunugii yaraayo ku kufayo oo dhacdhacayo oo maxaan ku raahdaa khaladaad galayo waayo waxyaabaha qaarkood aad arkaysaan waxaan rabaa marka cabsi iyo baqdin iyo dagaala loo noqonayaa iyo reer hebel qabsanayo iyo reer hebel ka boodaya iyo ma jirto reer hebel waa qabsan waaye reer hebel waa qabsan waayeen reer hebel isku tagay reer hebel kale waa qabsan waayeen haddana macquul maaha inay qabsadaan sina kuma qabsan karaan wax kasta ay wax waqtiyaysan waaye waana face laga baxaayo oo midkii ka fiicnay loo sii gudbaayo marka amuuraha dhismaha siyaasadda waa sidaas waxaad maqasheen baryahan oo aad iyo aad u maqashaan waxa la yiraahdo hiigsiga 2016 dawladda hadda jirta ay xilligeedu waqtigu ku egyahay waay mas'alada marka waxay tahay wadan soo marnay 2016 markii uu dhamaato xilliga dawladdaani uu dhamaado
وإن نسيس عنا دولد كلا هذا اعتماد صوما أما ضد كان على سوء اللي صار نقدين أما ضد عصبة كلا صومالي ده يمادين لكن مانديت عصب وإنه يماده مانديت كاس عصب سيكو إمانة مانديت كاس عصبي سيكو إمانة سي أجرتو أو أنا مانديت هذا اللي سوسي جري شن يتوان كيسانو دولد نمدو هذا يسوي جرتو بربر كي يحكي دم به هذا السيد نسي استاندر وأدويو يتقانو أما ضد كصوماليات با أي كو قناعسيين معه مركز سو إن هرمر لقى سماية أو أيضا لبسيد هذا لهرمر يسوع معه دولة نمد الصومالية وحا أصل أو أصل ديك أو حواي وبرلمانك برلمانك وهي أدى شروع للدلك نظامك الدلك واحد الجسد ضد كان وكيل كا سيد الله ترجع برلمانك مركز نوجوجا هذا الله بقول إطلاعات شن تحل بانك كوبان وحصوح علي أو كاني بقول يصدر إشان أضي أو أضيال صوماليات أو بيلها صوماليات ككلا يمدي شرعية ده مركب برلمان كانوا وعيستاهي وعكوسة ليسنتاهي بقول يصدر إشان تاس برلمان كسود أفريقيا شرعية دي اسمه عكوسة ليسنتاهي ما يقب مليون سود أفريقيا عضي سمركي وجود بيسي أنت سو مليون شرعية ده برلمان كسود أفريقيا وعكوسة ليسنتاهي أنت سو مليون شرعية 8 مليون 20 مليون أو قفوا عضي سي أي شرعية دي عكوسة ليسنتاهي أنا كنا بقول يصدر إشان عضي أو عضياشي إني أي عكوسة ليسنتاهي مركب دمبه مركب baarlamaanka dambe ee ku soo xiga kan horumar ma ka sameyn karnaa ma gaarsiin karnaa baarlamaan ay soo doorteen ama soo xuleen ama keeneen ama imaanshihiisa ay ka qayb qaateen dad ka badan 135 ma aha 135 oday inay xumaayeen ma aha inay cilada leeyihiin ma aha laakiin markaan suurtagal ma tahay 10 10000 هل مليون وقف صومالي أيها كقيب قادتي برلمان كان سي لو كانوا سي أصيغنا متك كسي دمبياي أنا أقول لك 8 مليون صومالي أيها كقيب قادتي ما تنكيس ماشي أن جوجناي وإن كدقاقنا هدي حتى ماشي قدام بيسي ودوني دورنا أي كل قنطو أو هالقف هالعض iyo sanduuqa codka oo tuuro kasta iyo ceel kasta iyo magaalo kasta yaala hadiiba lacala aanan gaari karin xataa oo meeshaasi nagu dheeraatay bootinteenu ay gaari weyday meel dhex ma ku sii haka karnaa si marka labaadon boodno aan u gaari karna meeshaas muhiimadda marka waxay tahay oo higsiga 2016 uu ku saleysay waa intaas wixii hore u jiray wax ka wanaagsan كشرعية حوجن كم مقال وناكسن هلا سميه كو وحكروا وطا قبيلك قانون كان نظام كان 4.5 مال أو قانون كدلك كجرا أو قرنتها 4.5 مجرد دستور كم قرر شارتر كذي هرو حتى حلقكم ملقار كم قرنين مال كلكم قرنتها مرها هذانا سيدا دارتي حوج بدنتها يوم محو هاي باور شيرك مeel looga dhacay leeyahay suurtagal marka nooma aha si aqli oo deganaansho ku jirto iyo xigmad ku jirto dafra hal subax inaan ka dhaqaaqno oo dhaano gadaasheena jirta gadaalaan u fiirinay 4.5 duudka u jeedinay bas waay laakiin ma sameyn karnaa si macquul ah oo dadkan ku qanci karaan inaan tartiib uga sii socon marka higsiga 2016 equation kaasi meeshii yaalahay variableska ama factorska equation kaasi oo ka koobmay waa badan yihiin ardayda iskuulaadka tagta xy equation kan simultaneous equation xy oo ka koobmaa soo lama dhigin equation ka oo 2016 isbedelka dambe imaanayo waxyaabaha yaani qaybta ka waa badan yihiin oo dhamaantoodna in ay ku wada jiraan ماشي وأنا منا لقيت اللوبان قبيل كي واجوجا وتان هذا لين هل صبح دبركم مجيدي كرناء ترتيبه إن نظام مصممنا وبعنا وإن محو هاي 2000 لبكون اللي حيتهم وإن محو هي قبيل كسيل ليليا وإن ليرا هاي طول كأن رمنا قبيل كأن ترتيب وجودنا وحزبية سياسات حزب السياسات سيدي عندنا شحذ اللوسو قليليا
وهول كلا أيضا تام maamul goboleedyada dalka ka jira ee sameysma hadda dawladda dhexe basbun maanta taladii ma joogtay ayagana xagee ka soo galayaan hiigsiga 2016 iyo doorka ay ku yeelanayaan waa maxay waa xaaje kale ayadana u baahan baarlamaanka federaalka hadda joogay lafsadiisa war adiga iska tag bas waaye muxuu xilligaaga waa dhamaaday mac salaam gurigaaga aad cid la dhihi karaa ma jirtee ayaga lafsadooda sidee hiigsiga 2016 oo uga dhax muuqanaya ninka siyaasiga ah والله meeshaan fursada ku jirto oo hadii aad ka dhax raadiso aad fursadaas waa ka dhaxili kartaaye meesha ka dhax shaqeyso oo fowdo iyo carqalad iska daa sidee ku dhigi karaa asigana oo loogu muujin karaa meesha inay fursad ka jirto fursad la'aan aanay ka jirin iyo kuwa kale badan waxaasa in inta la isku keeno wax wada shaqeynayo oo dadku ay ku wada qanci karaan intooda badan ama rajo geli kara inay meesha wax ka dhax raadsadaan in la isku keenaa rabaa عقل بدن يدجنانشية بدن أي أباهنتها ومباهنا محوها هاي أرض إيو حفيلتن إيو اسفعل إيو محوها هاي سببت مركا وحاسي وحال يابا أدويد وحاسو يعني شيء أو لسوكان ومباهنا سببت أنا أباهنا محيتها دل كان سود أفريقيا هذا جوكتان دانك سوقادنو حزبية سياسة واجران سوما أو دتك أي كمديين حزب أي كمديين وحاجر أورر شقالة جر سوما وقف وكترسية وحاجر أورر حرفة جر سوما أورر كدقاتير تا أورر كاللوير رضا أورر كمحنكر هذا عياري هندا أورر كفنانين تا أورر يا جر سوما أو ضدكم أي كترسية قف والبم طبعا عدى قفك بني آدم كإله لا أمر وحتى وإنه مال كترسية مال علا إسكما تاجنا كريكلي النبو مركا وحاسو لن مركا مقام أنتين كترسنا هاي قبيل كنا كترسنا باشا كترسنا مالك الكمين مركا واجبات كدت كيدنا سومالي دا ما انت جوغا اما السياسي هذا اما الشعب هذا يا لو حيتاي ان لا ابورو ميل ددكو اي كترسنان كران او وناغسن او افكار iyo idea iyo maxaan ku aqli looga tirsanaan kare hadaan ay reer hebel aan looga tirsanaa karin reer hebel waa wada garanaynaa sheekhooda caalimkooda كودا محوا الشيطان كا أموريان كا كان PhD ده هايستو كان عن مجلس عيسى قري كريم دمان جيت كان لسلسو وذا فريستا نول بقى فرت أنت تاكتو يرا أنا جو حي لطاي مال أو وحلة وحجارة والله يا با دقنهان ده إن لسكو احترامه حوال هو كلا قبضه والله يا با علماء ده إن أيضا اللي يراد حوال لكن وحكى لهم الجيران مركا نين يا إسبربر فردان تلا إذا كده حيسا واحد حريري أنا جيل اسكو فكر اسكو رأي اسكو درين اسكو هاي أرجنما اسكو أقول اسكو علم ما يدين مركا أنت أقون تلاها دن مركا محيكو قصبان تهاي إنه إسساق جابسه أو متكان أنا أقون تلاهن هوس أيدو اعتماد إلا إنك أنا أقون تلاهن مجلس عيسى قري كرين أنت اللي سبوتي إنك PhD ده لا مصاب بربردين كرو قبيل كده حديث مركب كان PhD ده وحقوق قصبية هاي إنه هوس أنت قدقه كان عن مجلس قري كرين أو لفريست أو مستواها أو كره هذا أو كره شاكيست أو وفهمي أو لقط وفهمي أو كره هذا وحيابها الدولة لماذا الصومالي أي ما ويدي كم بتاع دلك وإن لو أبورا يعني ميدانه ضدك عقلك علمك وصاحبك أي تلقوا جاري كران ضلك ضدك يكون جامي كران قبيلكم مركان سيدا عليها معناها لما أنت واحد بدل كفي عيها واحد بدل كفي عيها ولا سو جرجارة والرير بالواحد ولا بيلانه هاللو حول الجويا اللي راهو وقف عيرة قبل العيسى على غير عليها وراغونتي محوا حل جبارة اللي قال بيرتها الله صوت تعبان اللي راهو الله تعبان بير وين وأنا كلجي تعبدي وأنا جوسا كرن أما أنا فلا كرن ورهبل بيرتها على لا فلا اللي رمانت وقالوا ماذا ولا لا فلا نيك حوجر ورمانت عيالك بيكم يعني وحيابا بدنه أو محوا وكليه يود بدي للشيء ومحوا إلهي بالقرآن كيسكريم كان أو كشيء واحد إلا سكوا أقون صدق أو لسوء قادو لكن أنا ماشي أنا لسه كسي دافسي لكن أنا قاعد أحوم باناي سياسة عصر جاي قرن يكوي الله بعطنا كتر جميسة سيان دقاقناي
in aan maxaan ku iraahdaa aan abuurno adduunyada casriga sida uu nooshahay ay u dhaqanto isu xukunto isu waxayso muslim iyo gaalo miday doonto ahaate inaan maxaan ku iraahdaa la jaan qaadno oo waxyaabo maxaan ku iraahdaa casri aan keeno taas marka shaqada u baahan tahay waa ballaaran tahay arrimaha amnigoona haddaad ka hadlayna waxaa ka mid ah shabaab markuu dalka dhan qabsaday waxaa la yidhi ninkii burcaraa shabaab ku tuuri kara ha ku tuuro meel walba uu joogo la dagaalami karo ha kala dagaalamo gobol hebelow degme hebeley dadkii waa la is abaabulay dad badanaa kacay dowladihii joogay maagaa tiraahda waa kaalmeeyeen markii gobol hebel inta la taga la yidhaha ciidan ha laga waxeeyo dabcan gobolkaasi soomaaliya o dhan ha deganaata laakiin haddana gobol kasta iyo degaan kasta reer unbaa u badan ciidamadeenni marka waxay yeesheen muuqaal reereed inay leeyihiin kuwa gobol hebel ka jira waa reer hebel kuwa gobol hebel ka jira waa reer hebel in la yidhaha kuwa gobol hadda meela marka maalintaas nooma muuqanine yaa shabaab la dagaalami karaa maalintaas noo muuqatay hadda marka waxoogaa nafisaa yimiday dowladda federaalka waxay bilowday marka in ciidamadii inta la isu geeyo ciidan qaran laga abuuro oo ciidan qaran oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee la yaqiinay waagii dowladda ay joogtay ciidana la qoraa hadii la yiraahdo meeqaal la qoraa 2,000 oo askari deegaanada inta loo qaybiyaa la jiray deegaankaasna 200 laga soo qoro kaasna 500 laga soo qoro kaasna 100 laga soo qoro kadib la isku keeni jiray saasa ciidamadu ay ciidamo qabaa'ilka dhan ka kooban ay u ahaan jireen berigii hore maanta marka ayagii way jiraan way joogaan mushkiladda dawladdan curdanka haysta waxay tahay ciidamada waxaa la dhisaa waqtiga nabadda ah si waqtiga colaadda ay u shaqeeyaan annaga waqtiga dhinacna gacanna ciidamadii aan ku dhisaynaa